Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Said Cali maxkamadiisii mudaharaadka laga sameeyey. Haddaan ugu cusubtiin subscribe-ka like noo saara, commentiga ra'yigiina kusoo qora hoos. Haddaan kusii socdo, Said Cali maxkamadii racfaanka waxay ku xukuntay toogasho sidii maxkamadii hore. Dadkii heladiisa ahaa, eedooyinkiisa, habyaradiisa, asxaabtii, kulli mudaharaad bay sameeyeen. Waxay ku nasteen say piano. Hadalladooda waxaa ka mid ah sidatan: قالي مالنتي قدك aad noo soo gashaan ogaada tan inaan idinku dhaafeen. Said Cali hadii sharci islaam lagu xukumi waayo diintayda macaan baa ku raactay midteedan ku dagaalamaya oo bilaa oo tan cadaalad darro inaan yeelin doonin maxaan ku dhilaa maxkamadda gobolka Banaadir labada maxkamad waxay isku raaceen baadil waaye. dadku waxay leeyihiin maxkamadii hore bay racfaanka hadalkeedii raacday. xukunkii hore toogashada yeeshay, marka laaluush bay qaateen. xukunkan waa baadil, saasay leedahay. gabar baa dhehaysa hadalkaa. So marka maxkamadda racfaanka markay hadalka dhegaysato, markay ula ekaato tii hore waxay xukmisay inay meesha yaalaan nutinka dilkii inay usoo baxayso ma dhici karto. gabadhii kiiskeedii markuu dhageystay maxkamadii hore inuu saa ku raacayso ma dhici karto. waa dhici kartaa asoo aan laaluush qaadan. nimanka maxkamadda jooga inaa laaluush aad ku aflagaadeysaan waa laga fiican yahay. xataa waxaan maqlayay maamada dhehaysa odaygu wuxuu yiri gabadheedu way ii sheegtay Said Cali inuusan dilin, bal ka war. odaygaaba dhahay bay tiri, anuu ceymayay kutee, anuu ceymayay waa qof weyne, ilaahay ka baqo. weli odaygaasoo dhahaya gabadheeda atay Said Cali ima dilin, maanaa maqal. tusaale, hadda ninkan Said Cali markuu xaaskiisa la joogay 4 saac habeenimo asaa gaas soo gaday shidaalka, cid kale lama joogin. markhaati haddaanan lahayn, gabadhiina la gubay, ninka shidaalka soo gaday oo shidayna uu asaga yahay. markhaati haddiis gabadhu helin, ninka markhaati haddiis gabadhu helin ku qiraya ninka lama dili karo miyaa? yaa gabadha dilay, sababtee ku dhimatay gabadhu? waxaa laga rabaa dadka Said Cali ehelkiisa ah, wiilkiina cadaalad u raadiya. waa arrin xanuuna, waa runtiin. laakiinse wiilkiina gabadhaasaa qabay, habeenbar bay ahayd, 4 saacaynimo ahayd. shidaalkii wuu soo gaday, afkiisa ku caddeeyey, wuu shiday, afkiisa ku caddeeyey. haye gabadhii waa gubatay, anaa soo badbaashuu ku yiri. wuxuu leeyahay anaa soo badbaashay. gabadhi yaa dilay. haddaa ilaahay qur-aankiisa aad rabtaan laydinku maqmulo dadka u mudaharaadaya Said Cali, waxaan leeyahay kitaabka ilaahay baa rabtaan soo maaha. hadda gabadhan waa la gubay. Said Cali wuxuu yiri guri baa anigu qol baan soo gubay, waxaan ku iri qolkaasaan soo gubay. waxaan wimid biyo qolka jiefka, qolkaasaan soo gubay, waxaan iri qolkaana waa gubayaa. way ka soo baxday qolkay gashuu yiri, markaasi gubatay. gabadhi lugihii kama gubna, cilaankii lugihii ku yaalla way ka muuqdaan. cilaankii lugaha soo marsatay, dhakhtarku wuu sheegay. gabadhan waxay ka guban tahay qaarka sare, labada indhood, madaxa, dhuunta, xabadka, cawrada dhinac bay ka guban tahay. inta kale lugaheedu waa caafimaad qabaan. gacan iyo kilkasheedu way guban tahay. marka anigu waxaan leeyahay dadka u mudaharaadaya Said Cali anigu wuxuu ila eg yahay, anigu kuma markhaati kici karo, laakiin wuxuu ila eg yahay nin in la dilo aan rabin oo qarinaya gabadhi inuu gubo dilay, laakiinse
uu gabadha dab ku dhajiyey ololka asaga gaarayna baasiinka markuu bug dhaho ma yaqaano kanaa ku shiday iyo kanaa ku shidee gabadhii nafta kula soo oroday markuu dabka ku tuuray kadibna uu gadaal u hunturantureeyo guriga ku xiray bay u eg tahay asaguna dabka uu saa ku gaaray Sayd Cali saasi u eg tahay laakiinse kuma caddayn karo ilaahay baan cafis weydiisanaynaa laakiinse anu waxaan oran lahaa gabadha Sayd Cali hadduusan dilin yaa gubay keligiisa la joogee waa ninkii qabay yaa gubay hadaladiisa haddaan wax ka soo saaro Sayd Cali wuxuu leeyahay qolkaanoo ku jiro qolkaana gubaya markaan idhi qolkii iga soo aaday aan soo gubay qayladeeda markaan maqlay wuxuu yidhi xanaaqii wixii oo dhan baaba iga tagay buu yidhi xanaaqii iyo hayoo dhan baaba iga tagay ayadii baan u tagay iyadii baan badbaashay xanaaqiina wuu iga baabaa hay arrintan waxay u eg tahay hadday xataa tiri gabadha way furaysaa nin kale aan guursanaya inuusu yidhi naagtan nin kaleba adduunkiisu guursan ifka kaxe saasay u eg tahay Sayd Cali hadduu inkiro xataa hadduu inkiro gabadha meesha ku baxdaa la rabaa yaa dilay indhaheeda maxaa loo gubay maskaxdeeda maxaa loo gubay anugu gabdhaha hadlaya mudaharaadaya gabdhow آية القرآن كحلاد والنفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن قرآن كإلهي كجتا نف بالود ليا الشائل بالور رديا والأذن بالأذن لكت بالله شريا والسن بالسن الجروح قصاص لفت هذه الجرنا ولا قصاصية مركا لكان قبدي قارك إذا دبك قشو يري أو كوجبتي دبكينو شدنا وشاقي laakiinse gabadhaani gabadh isku gubatay ma ahay waa gabadh la gubay weeye hadday gabadha dab ololaya gasho lugahay kasoo guban lahayd looyahay kasoo guban lahayd kor bay u basi lahayd gabadha hoos way ka bad qabtaa waa qaarka sare waxa laga shiilay marka Sayd Cali maxkamadda racfaan u qaata buuqa sameynina hadda baawur baa muraayadaha ka jebiseen baa lii حتى ما موينك قار وحي ليهين قرية كان سوق عادنا يا جعان بان كتشوفنا جعان كان كنت قالم يا قرية نوي تسمع قرية كان سوق عادنا يا مروح ليهين رجعنا كفل علني محل قيلنا ساني كان موحبود دلي مزوح مدلي بقى مشتال قبل أن يدلي وحي دلال الروا مركا محكمة دا آيات القرآن سوق عادتي sidii nabi yuusuf naagtu markay xoogi rabtay oo dacweysay sidii loo xukmiyay nimanka caqliga lahay dhehen yuusuf hadii marada gadaal ay ka duuduubanta ka dilacsan tahayna ayada xoogaysay haday hore ka saa tahayna asaga isku day wax walba aayad walba soo qaateen oo diinta haye maxaa rateen diinta arabtaan oo idin ku xukmiya arabtaan مدين قارا إذن كودا تامبا أنا قلت علي كودا رجل عسما يحلى إلهي أرماها كوفو ضي دبكو قاري إلهي لما قارسي نوال بنو حنكولتني عرض هذا يريه هذا عرب بدنتا حاسكا كولاد ديرتو حاسكا هدا كولاد ديرتو هلا ديرين له قرو واتك عرض مركي كابا بعض وصل لابو أنو ساسا نوال بكولتني سعلنا حلى هاي gabadhaas haddaa gubtay oo aad inkiraysid ilaahay uga baq hadda maanta inkirtid maalin waxaa jirta aad ilaahay hortegaysid ayada arrinteedana ay ku hortaala iyo cadaabka uu ka hor yaalo waxaan idin leeyahay hadda kiiskaasi Cali intuu taagan yahay reer Cabudwaaq saddex nin baa midba marnin dile saddexdoodiiba tiirkaa la keenay maxay u dishay anaa liigu sababay xadkaa liiga oofiyo iyo mid walba dhah adduunka dadka waxaa ku xun qof inuu nafta ka jarana raba asaga inuu noolaado inaan la dilin raba saddex ninba si Cali kiiskiisu intuu taagnaa saddex nin reer Cabudwaaq la dilay oo dhintay mana ciyaarna laguma diline dad bay dileen wayna qirteen sharciga Cabudwaaq yaalla wuxuu yahay la yiri ninkii nin dila
inaan mag laga bixinayo la dilo. marka isla markiiba uu qiranayaa wuxuu leeyahay anaa dilo liigu sababay xadkaa liiga oofiyey. maxaaba been keenayba. saasaa loo baahanya. marka Sheekh Cali waxaan leeyahay qofkii dulmi ku taageero dad dhibaateeya Sheekh Cali dulmi ku taageera waxaad ogaataa ilaahay xisaabtiisa inay kuu dambeyso. aakhirana waxaa la yiri yawma yafiru almaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi. waxaa la imaantii yawma qiyaama hooyada iyo aabbaha baa ka cararaysaa, hooyada iyo aabbahan waa ka cararayaan. ilmahaaga iyo xaaskaaga ka cararaysa, ilmaha iyo xaaskaaga way ka cararayaan. xaaskii hooyadooda ilmaha hooyadooda ka cararayaan, ilmuhu ayagaa kala cararay. aakhira waxba la iskuma aha. marka haddana adduunka intaad joogtaan Sheekh Cali dulmi ha ku taageerina. saasaa idin oranayaa. dagaal baan sameynaynaa iyo bakbaq iyo waxaas daaya. dowlad baa jirta. qofkii qof dilo waa la dilayaa. si kale dulmi kuma joogsanayo. haddii qofkii dad dilo la dilo, hadda waxaa leeyahay gabar, xataa marka qaarkood waxaa leeyahay gabar wiil looma dili karo. gabar naf bay leedahay, wiilku naf buu leeyahay. ninkii gabar dila waa la dilayaa, gabadhii nin disho waa la dilayaa. wanafsu binafsi waa diinta. haddaad diin raadinayseen diinta ilaahay saasaa ku qoran. gabar hadday wiil disho waa la dilayaa, wiil hadduu gabar dilo waa la dilayaa. maxaa yeelay gabadhu qiimay leedahay, naf bay leedahay. waa hooyo soo socota wey. hadday gabar yar tahay, hadday gabar weynba tahay, waa hooyo. wiilkuna waa aabe. marka waa la dilayaa wixii. marka qofki qof dila diinta islaamka hala dilay tiri. haddaad diin islaan rabtaan nimanka maxkamadda ayagaa xukmiyey. hadday been xukmiyaanna ayagay korkooda ahaatay. ana waxaan oran lahaa faraha looga qaado. dadkuna maxkamadda haddii uu Sheekh Cali qaatay racfaankaas ha sugaan. barnaamijka kaas uga baxaya daawashadiina waa ku mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabaday.